السلام عليكم أصحابي مركل كسر هذا كنال كينا بلش أي يوتيوب دوني أنت هذا جوتيد وحدا أركين مالي واي وحول بحيكو دعان قدرت أرلي هدي أرتيد وحكايا بيا ما هنينا ليابتيد وحتى هي مسلم وإنا رمسا قدرت أرلي sida wada ognahay badunidan waxa ku nool dadyo far badan oo kala duwan xagga dhaqanka diinta iyo muuqaalkaba tusaale anaga waxaan ahay Soomaali Ilaahay ayaana siiyay dhaqan wanaagsan laakiin marka qaar waxa aan rabnaa dhaqamo naga yaabay laakiin dadka aan la yaabeeno way la qurxoon tahay dhaqankooda tusaale dadkan oo kale waa dad dirisna la oo Ethiopian ah had sida u jeedaan ninkan birta afka ku jirto wuxuu isku haystaa dhaqanka dunida ugu fiican inuu haasto sidoo kale markuu ninkan gabar doonanayo wuxuu marayaa dhibaatooyin kale waxa la keenayaa meel banaan waxaan lagu garaacayaa jeedal ama shaawuug sida u taqaanaan markuu jeedalkaas ama shaawuugaas lagu jir dilo ayaa waxa la aaminsan yahay gabadhaas mas'uuliyadeeda inuu qaadi karo alxamdulillah hadaan hay Soomaali dhanka guurka dhibkaas naga ma haysto haddaan u soo laaban ciwaankeena maanta waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa dadyo jirkooda uu ku duwan yahay dadka kale sababta muuqaalkan kuugu soo gudbinayaan waxay tahay inaad ogaatid nimcada Ilaahay uu ku siiyay inaysan dadka la haasanin haddaba inta ku soo gudbinin ka hor muuqaalkan ka mid noqo asxaabta ku xiran kanaalka bulsho oo subscribe garee gambalelkarna furo si video walba markaas soo dhigno aduun qodid daawadaha ugu horeeya haddaba qofka waa haweeney lagu magacaabo Ayana Williams waa shakhsiga ugu xijiyaha dheer dunida aan maanta noolnahay Ayana Williams waxay ka soo jeedaa gobolka Texas ee dalka Mareykanka haweeneydan xijiyaheeda waxay ku raayeen ku dhawaad 20 sano 2018 ayaa la aqoonsaday shakhsiga ugu xijiyaha dheer dunida waqtigii laga diiwaan gelinayo Book World Record ayaa la cabiray xijiyaheeda waxay gaarayaan 18 feet iyo 10 inch cijida suulka ugu taal Ayana ayaa markii la cabiray waxay ka dheer tahay ninka ugu gaaban dunida oo lagu magacaabo Chandra Bahadur Ayana ayaa mar wareys la qaaday waxa la weydiiyay in iska jireys cijihiida iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan waxayna ku jawaabtay cijihiga dhibaatooyin weyn ayay igu hayaan sida markaan wax cunayo markaan aadaa magaalada iyo mashquulka dadka laakiin mar uu hadafkaygu wuxuu ahaa in la igu qoro Book World Record haddana ma jiraayo cijihiga oo aan qabsaday waa qayb ka mid ah noloshayda qofka labaad waa Lalita Batidar waa wiil yar oo dhashay dalka India waxa ku dhacay cudur lagu magacaabo hepatotrophostis oo dadka dunida uu ku dhaca 3% Lalita Batidar wuxuu dhigtaa iskuul ka mid ah iskuulada India halkaasna wuxuu kala kulmaa dhib aad iyo aad u fara badan ardayda iskuulka ayaa waxay ku tuuraan dhagax kadibna waxay dhahaan waxa waqti tahay daanyeer Lalita Batidar ayaa xaafadda wuxuu imaadaa asigoo tacdiid aad iyo aad u fara badan la kulmay maalin walba iskuulkiisa ma gambiyo oo waa uu aadaa Lali wuxuu leeyahay hami ah inuu noqdo sargaal sare oo ciidan ah Lalita Batidar waxaa la dhashay 4 gabdho oo walaalihiis ah oo mar walba ku dhiirigeliya una sheega inuu aad u qurux badan yahay Lalith aabihiisa oo lagu magacaabo Bankatlal Batidar ayaa sheegay inuu isbitaal weyn u qaaday Lalith markuu jiray 2 sano oo laakiin la dhahay cudurkiisa waxba laga ma qaban karo laakiin Lalith wuxuu leeyahay hami ah cudurkiisa in wax laga qaban karo qofka saddexaad waa wiil lagu magacaabo Maxamed Kaliim waa wiil yar oo ku nool tuulo ku taala gobolka Harkandi ee bariga dalka India Maxamed waxa asiibay cudur la yiraahdo giatism oo sababa koritaanka gacmaha bini'aadamka qofka inuu ka weynaado gacmaha Maxamed Kaliim wuxuu awood waayay inuu la qaato ardayda iskuulka yihiin xiisada maxaa yeelay waxay ku dhibaateynayaan qaabkii u yihiin gacmihiisa Maxamed Kaliim wuxuu ka dhashay qoys danyar ah oo muslim ah Maxamed Kaliim macallimiinta iskuulka ayaa ka soo ciiriyay iskuulka waxayna waalidiintiisu u sheegeen in ardayda xiisad la qaadan karin sidaas la ajligeeda iskuulka la uraadiya Maxamed Kaliim waalidiintiisu waxay dhaheen waxa ku adag xirashada dharka iyo cunitaanka raashinka 2014 Maxamed iyo waalidiintiisa waxa rajo weyn soo galiyay nin la yiraahdo Dr. Raja Sabati oo dhakhtar ah Dr. Raja ayaa yiri Maxamed xaaladiisa wax waa laga qaban karaa laakiin marka hore waa inaan isku daynaa inaan hal gacan yareeno labadooda hal mar isku mar wax laga ma qaban karo waqtigaas Maxamed Kaliim gacmihiisa mid ka mid ah waa loo yiriyay iskuulkiina waa loo ogolaaday xaafadii oo dhan macaan buu ka noqday laakiin wili gacmihiisa mid ka mid ah waa sidii Dr. Raja ayaa yiri haddii aad tan kale aan ku darno waxa iman karo xaalad caafimaad daro oo dhimasho keen karta qofka afraad waxa lagu magacaabaa Rakadant Rajpai waa shakhsiga ugu timaha dheer dhanka dhagaha qofkan wuxuu u dhashay dalka India waxaad ogaataa dalka India in ay tahay dhulka cajaa'ibta ah inta badan dadka aan ka soo hadlaynay waxay u dhasheen dalka India
2003 ayaa loo aqoonsaday shakhsiga ugu timaha dheer dhanka dhegaha. Ninkan ayaa aad u ilaaliya dhegihiisa, wuxuuna la kulmay dhaleecayn aad u fara badan dhanka bulshada, waxayna dadku ku dhahaan waxaa leedahay timo aad iyo aad u dhaadheer sida shaydaanka iyo kale. balse ninkan ayaa yidhi dhaleecayntaas waxay iga dhibaysa ma lahan, waayo waxaas waxaa ka weynaa hamigii aan lahaa waana gaaray. mararka qaar xataa waxaan ka ilaalin jiray xaaskayga inay iga jarto, balse markay aragtay abaalmarinta liigu siiyey way igu taageertay. ninkan markuu booqanayo xataa timajarayaasha wuxuu kala dardaarmaa inaysan sakiinta ugu dhicin dhagaha timihiisa ku yaala. hadda waxaan filayaa inaad ka heshay fiidiyogan asxaabay. haddii aad ka hesheen fiidiyogan please like ha ka ilaawina, kanaalkana kusoo biira, subscribe gareeyo, gambaleelkana furo si fiidiyo walba la soo dhigo hadduu noqotid qofka ugu horeeya daawada.